waftiga wasiirada ay hogaaminayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cali maxamuud axmed cali sandulle oo maalmihii u dambeeyay u joogay gobolka Sool ee magaalada xaruntiisa magaalada Lascanodhinac shaqaaqadii ka dhacday koonfurta gobolka Sool ayaa maanta la kulmay dhinac ka mid ah labadii beelood ee shaqaaqadu ku dhexmartay deegaanka koonfurta gobolka Sool waxaana kulankaasi ku yeesheen xarunta maamulka gobolka Sool oo uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo sheegay inay ka wada hadleen adkeynta nabadgelyada. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halkan waxaan ku kulmay wafdigii gurmadka ahaa ee wasiirada golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ka socday ee soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo wafdigaas uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada ka koobnaa wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka dowladda nabadgelyada wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo banduulaha ciidanka bilayska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isna watay وطبيعي ciidamaha oo ku tababarana kuwaas u socday gurmad runtii inay ka galaan xaaladda nabadgelyo ee ka soo korodhay dharkay ka bilaabtay taas oo Ilaahay noo guuleeyay maanta gacanta lagu hayo maanta waxay la kulmeen wafdigu beesha Cabdi Garaad ama qayaad oo ay kala kulmeen odayadeedii oqaashi culimadii ganacsatadii iyo waayeelka kale goobta joogayba gobolka joogay oo ah guddi ay soo saareen inay la kulmaan wasiirada iyo guddida nabadgelyada gobolka runtii waxa laga wada hadlay waxay ahayd adkeynta nabadgelyada ayaa laga wada hadlay in la adkeeyo sidii hore ay beeshu gacanta ugu haysay waxa kameynaysa mar walba inamadeeda inay halkii ka sii hayso oo ay sii xakamayso oo dadaalkii intii dheerayso maaragtay ka sii adkayso ayaanu ka wada hadlay runtii wixii laga wada hadlay qodobadeena ka wada hadlay dhammaanna is afgarad bay ahayd beeshuna iyadaa fududaysay oo ku baaqday nabadgelyo inay diyaar u tahay wasiirada iyo guddiga nabadgelyada waa gamaad celiyeen tii hore iyo tan maantaba waxaan rajeynaynaa waa in nabadgelyada aan la wada hayo beesha waxaa kaloo la xasuusiyey in ay soo saareen golaha guddida wasiirada wafdiga iyo gobolku in la adkeeyo nabadgelyada ciddii bilowda xabadna ay daraf ka noqonayso dowladda iyo ciidamada amniga ay daraf ka noqonayaan taasaa la xasuusiyey waxaa la xasuusiyey inay siday nabad u hayeen iyadoo looga mahad celiyay ku sii adkaadaan. waftigan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo igmaday xalinta shaqaaqadii ka dhacday koonfurta gobolka Sool taasoo ay weli ay socoto waanwaantii labada beelood ee walaalaha ee koonfurta gobolka Sool. waa Barkad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Lascanodhinac.